magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxaa lagu qabtay xaflad lagu caleema saarayay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare waxaana ka qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin iyo madax kale oo kala socday dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka socday beesha caalamka wariyahayga Safiya Cismaan Cabdulle ayaa faahfaahinta warkani inoo soo dirtay munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaana lagu caleema saarayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose iyo beesha caalamka madaxda ka soo qayb galaysay munaasabada caleema saarka ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare soo dhaweyn kadib ayaa waxaa madaxda loo soo gudbiyay hoolka loogu talagalay in lagu qabto caleema saarka madaxweynaha madaxda maamul goboleedyada ayaa u hambaliyay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kamid ah madaxdii ka soo qayb gashay xafladda caleema saarka ayaa asna dhankiisa ugu hambaliyay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabelle doorashada Maxamed Cabdi Waare waxay ka turjumaysaa federalismkii Soomaaliya oo socda oo hirgelaya waxaan rabaa inaan tilmaamo wax yar ka iraado in yar baan aqaan Maxamed Cabdi Waare laakiin inta aan ka bartay waxaan aaminsanahay reer Hirshabelle inay heleen hogaamiyihii u wanaagsanaa ay heli lahayd ha noqoto aqoon dowladnimo ha noqoto waxbarasho ha noqoto khibrad intaba waxaan isleeyahay maanta marxaladda ay marayso Hirshabelle socodka loo baahan yahay taariikhda ay rabto inay ay marto higsato dariiqa dheer ay qaadayso waxaan isleeyahay hogaamiye ka gudbi lahayd waana isibeen waxaan rabaa sidoo kale marka inaan iraado Maxamed la dardaarno iraado maxamedow mas'uuliyad oo ku duceynayna horta mas'uuliyaddu waxay u baahan tahay duceyn ma isku hambalyeeyna marka mas'uuliyadda aad qaatay Allah kuu fududeeyo waa ku hambalyeynayna runtii waan ku duceynaynaa waxaan leeyahay hambalyo Hirshabelle madaxweynaha waxaan leeyahay guulayso Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa asna u mahad celiyay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda caleema saarka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga ballaaran oo wado iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo waqtiga jira annagoo loo muujiyey niyad wanaagsan oo aan ku dayano oo aan iftiinsano oo aan raacno taa macnaheedu maaha in wada hadal aan loo baahnayn taa macnaheedu maaha qof walba dhinkiisa hala aamuso taa macnaheedu waxa waaye wardan baa naga dhexaysee farqiga dhexdeena intaan iska dhigno waxaan la sugaa waa ognahay oo qaraxa oo gaajaa oo caafimaad darraa oo colaada ma waxaasaa noo muhiimsan inaan xallino mase inaan rag iska riixino oo aan isxusulayno ayaa noodana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa asna dhankiisa ugu hambaliyay madaxweynaha cusub dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu horeeyo maanta madaxweynaha caleema saarkiisa halkan isugu nimid Maxamed Cabdi Waare iyo gabagaabayaasha munaasabadda caleema saarka madaxweynaha Hirshabelle markii ugu horreysay kulligii waxaan aad sharaf iigu ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan muhiimka sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in aysan jirin wax khilaaf ah oo ka dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya maalmahan waxaa muuqatay in la aaminsan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tagaan ee xiriirada isu jiraan si
inaan nahay laba wadan oo kala duwan oo kale aan ugu bishaaraynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaanay meel kala aadin waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro wuu imaanayaa khilaaf laakiin khilaafka waxaa lagu dhamaynayaa wadahadal dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka haddaan garbaxaysanna ma yeeli karno inaan kaligan duubo safiya cismaan cabdulle puntland TV magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle